أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله وبعد. إلهي باكم mahadsan ka gadaal waxaa ku mahadsan dadka muxsiniinta ah ee Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyay inay intaan oo masaakiina oo qaxootiya oo agoona inay wax u dhiibaan Allahi waafajiyay baa ku mahadsan annagana insha Allah ta'ala waan uga mahad celinaynaa islaamka oo dhanna sidaas ayuu bagaadinayaa waxaana codsanaynaa wixii kaleeto oo muxsiniina Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyay inay maartay ay sidaas oo kale ay u soo ihsaan falaan oo agoonta ay soo gaarsiiyaan nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ana wa kafilul yatiim ka haatayn fil janna aniga iyo ka kafaala qaadaya agoonta jannada ayaa sidaa ku waxay kamid tahay meelihii ardayda dugsiga Qura dhigata ay deganaayeen ruurtan waxay kamid qayb ka yihiin kaamka dadka degan ardayda gabdhahan sida dadkan oo kale goobahan waxay kamid yihiin qayb kamid ah kaamka Qura ardayda meesha ay wax ka baranaysay ayay ka qayb ka tahay dad soo barakacay oo fara badan ayaa halkan degana oo qaarkood ay agoon ahaayeen agoontaas oo ka faa'iideysatay waxbarashadii ay ka heleen dugsiga Qura kaamkan marka aad fiirisid dhul ahaan aad ayuu u ballaaran yahay wuxuu isugu jiraa dhul aad u weyn oo qaybo kala duwan ay si kala duwan ay dadku u degan yihiin kaamkan wuxuu yahay kaam aad ballaaran ardayduna waxa ay deganayeen qolobo meeshii Ilaahay markaas u saqiray oo hadba way kala duwanayeen oo kaamka dhexdiisa ay intooda badan deganayeen oo noloshoodu waxay ahayd sida tan ka muuqata buushashkan ay degan yihiin iyo guryaha kuleeshku isku dhaxyaan kaamka iyo kuleeshka markaasina ay yihiin kuwa markaas isku hal meel ay wada deganayeen goobtan dhismahan ka duwan kaamka waxa uu yahay goob markaasi ay ku kulmaan hoyga nasashada kaamka la yiraahdo oo ay markaasi hooyooyinka ay ku kulmaan ama ay ku shiraan dhismahan laamyeeriga ah ee dugsiga Quraanka Kariimka ee tarbiyada Islaamka Qura ayaa la yiraahdaa saddexda qol waxa ay saddexda qol ee lagu bilaabay aan iraahday midba mar inkastoo la dhisay haddana saddexda qol ee muuqata waxa ay yihiin saddexda qol ee waxbarashada ardayda caruurta agoonta ee dugsiga Quraanka Kariimka ee tarbiyada Islaamka Qura loo yaqaan ay wax ku baranayeen muddo 2 sano oo xiriir ah wiilal iyo gabdhaba macallimiinna ay lahaayeen marka haddana loo wado mid kale inuu guuraan sida muuqaalka hore aad ka arkayseen gabdhaha iyo wiilashana ay halkan ka tageen marka xaaladda marka ay fiirisid dhismaha laamyeeriga ah ee hadda ay wax ku baran jireen ardaydii ay ka guurtay meesha kuleejka iyo mid ka arki doontaa inkastoo ay kala duwan yihiin quraanka ka maraysaa Ibrahim ma maraysaa adiga ma akhri kartaa hayno akhri أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم إمكنا وحال بالله qaybinta raashinka loogu talagalay ardayda aqoonta dugsiga Quraanka Kariimka tarbiyada Islaamka ee Qura dhigata waxaad u jeedaan Maxamed Xuseen Cadaawe Sheekh Maxamed Xuseen Cadaawe
oo 10 kiilo oo bariisa iyo 10 kiilo oo sokor ah siinaya ardayda waxay ka faa'iideysanayaan raashinkan la siiyey waa kuwan aad u jeedaan raashinkii ayay qaateen ardayda intii isku qoys ahna waa la isku siinayaa intii kale qoysna waa la siinayaa wiilal iyo gabdhaba waa la siinayaa arday isla dhalatay waa loo yeeray waad u jeedaan iminkana wiilkan iyo gabadhan aad arkaysaan waa isla dhasheen gabadha yartaa kale soo socotaba waa la dhasheen waa qaateen waa qoyskaas qoys ayaa loo siinayaa arday ma aha qoys kasta waxaa la siinayaa 10 kiilo oo bur ah iyo 10 kiilo oo sokor ah waa qoys sida Sheekh Maxamed Xuseen Cadaawi sheegay ardayga hadduu kaligiis qoys ka socdo iyo haddii ardaydu 3 ka socdaanba waa la isla siinayaa arday kasta oo la siina waxa uu tagayaa xaggaas waalidkiis hooyadiis ayaa sugaysa bacdama agoon yihiin hadda meesha jooga cadadkooda waxa waaye awal dugsi waxa dhiganaysay 145 uga dhiganaysay duruufo jira awgeed waxaa hadda diyaar ah 70 iyo 2 cunug hadda diyaar ah inta hadda diyaar ah oo macnaheedu markaan xirxiran oo boorsooyinkooda wata oo kuleejka saaka u socota hadii leeyahay labada sano marka ilmaha agoonta loo hayo hooyo kamid ah oo dhowr carruur haysta haddana qayb kamid ah maqan mid labo ugu jiraan ilmaha ayaa haddana dhowr kelmo oo macnaheedu waxay loo soo jeedi doontaa si ay u aragto ilmaha ayay kala tabadal عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أيام هذا السكالة إن سوق جرسي ولا عليه أنا ماشى لبضة سنة إنه جو جاي وكمدة القرى مسؤولين تيسي واتن أن ما أنت هل كان وده جوجنو مهمة جدا أي نقطة هاي فرحة وين والمعلم قيمة بدن أي نقطة هاي تاس أرجعنا إلهي ما هذه أسأل الشغلات الله أنا كل أورو أقولتي إنه قاعدين إنه جايين كولج وأنا كوهي نماشان دكس القرى وإحنا جبرناين حتى إنه جوجان كوكلا ويرير عن إنه جالين قاعدست كولج هذا وحنقعد سنينا القرى أنت نور إيمان إنه معناها دكسي سيدي هذا السعودي كي كلا إنه هو دان دكس القرى ما هذه كجارت وأنا أمهات علينا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeyso waxay mahad iyo galad u sugnaatay Allaha koonkana keensaday noo qadaray inaanu halkaan aynu ku wada kulanno walaalayaalo sidaad ogaalba u leedihiin waxaynu ahayn dad ilaa iyo muddo maanta wax soo wada waday arrintan Ilaahay dartiisa ugu istaagay Ilaahay dartiis aqoon idin ma aanan lahayn dad idin yaqaan ma aanan ahayn sida aad ogtihiinba maanta wadanka sida uu yahay ama xawaalaheeda waad la socotaan qabiil idinkuma aanan dooran ninkan wuu nala dhashay intaasoo sano dadkaas aan arrintooda wax ka soo wadnay umalayn maayo hal cunug aan ka garanayo ama hal gabar oo ilmaha hooyadooda aan ka aqaan inay jiraan waxa aan intaas u suudinayna waxay ahayd Ilaahay dartiisa inaan dadkaas masaakiinta aan u istaagno ugu kaalmayno inta Ilaahay oo na karsiiyay alxamdulillah Ilaahay waa noo nicmeeyay awoodowna siiyay wuuna karsiiyay waxaan ka rajaynaynaa in dhameystirkeeda ilaa iyo intuu alla na karsiiyo ama se ilaa ay ka gaaraan ayaga kuwa naga dhaxla inay noqdaan oo bari ka maalin aqoontu u istaagaan inaan maanta ayaga ku tarbiyeyno ayaga ay noqdaan bari ka maalin kuwa u damqada ama se u xanuunsada baritooda cunuga yatiinka ah oo asaga ka yaraan doona inaan helno yani ayaga jiilka ka dambeeya dad u noogu istaagi doona inay noo soo baxaan in wax wanaagsan noo ka soo baxaan Ilaahay haddii uu noo qadaro annagana maanta aan tarbiyad wanaagsan ula imaano inaan Ilaahay dartiisa ugu adeegno inaan waalidka haddii aad tihiin dadkaani annaga iska dhaafay idinkay amaano cawad idinku yihiin annagana amaano intaas ka sii laba jibaar ama ka 10 jibaaran ayay nagu yihiin inta awooddanada ay dhan tahay
ama se ka badanba wax allaale iyo waxaan awood aan leenahay aqoon ha noqoto maaliyad ha noqoto macruufa ha noqoto wax allaale waxaan awoodnay inaanan ka hafran doonin haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad ammaanadaasi aad ogaataan sida ay cawada idinku yihiin ka badan annaga inay nagu yihiin inaa inta cawada ka walwalaysaan ka badan annaga ka walwalow hayno because adi hooyaa tahay haddii hortaada adoo joogo cunugaaga uu dhib ku dhaco ama se uu wax noqdo ama se uu wax kuu bara waayo waa ku qanacsan tahay because inta awoodda waa u suubis laakiin aniga uga waxaan siinahay dad oo mas-uuliyaddaasi ay ku tahay yacni subxaan allah wax la qiyaasi kara aysan ahayn sometimes wadnahayguu la gariiraa micnaha mas-uuliyadda waxa la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asaga oo la dardaarmayo nin asxaabiya wuxuu dhahay laba arrimoodba ka fogow oo ha ku dhowaanin inaad xukun qabato ha qabanin oo ka fogow inaad xoolo yatiin qabatidna ka fogow baa la dhahay ma fahamteen marka yatiintaas masaakiinta oo ilaahay dartiisa ugu khidmaynayno annagoo ilaahay uga raadinayno inaan janno ku galno inuu dhib naga soo gaaro ama se aan danuub nooga timaado waxa waaye subxaan allah ilaahay ayaan ka magangelaynaa ma fahamteen idinkana waxaa idinkaga baahannahay inaad noogu soo ducaysaan in ilaahay noo fududeeyo ilaahay arrimahooda noo saqiro ayaga awlaad wanaagsan